بسم الله الرحمن الرحيم waxaa jiray dhowaan siday dad badan la socdaan buuggan hortay jire oo aan qoray aniyo niman asxaab nahay waxaa ka cawday abwaankeenna muuse cali faruur muuse wuxuu sheegay buuggaasi in waxyaalo ku qoran oo isaga aanu ka xiganay aan isaga laga xigan ee laga been abuuray waxaan leeyahay muuse waa abwaankeenii waxa weeye qaryaankeenii waa macallinkaygii suurtagal maaha inaan muuse iyo qof kala toona ka been abuurto qisada uu muuse ka hadlayaa waxa weeyaan bulaysane faraska la yidhaahdo oo qowdhan ducaali lahaa sheekadaa muuse cali faruur baan ka xigtay waanan ka duubay 19 Julaay 2019 ayaan hudheelka xaraf ee magaalada Hargeysa kaga duubay oo markaa furaa 10 subaxnimo codkiina waan hayaa waanan idin maqashiinaya ciidan kale ayaa barbara reer Axmed oo barbara ka dawladda ilanka guursaday arooskii markuu dhamaaday ayaa rag iyo fardaha watay soo baxa markay soo baxeen ayay arkeen geel daaqaya abbaar iyo dhulka sida lagu yiri markii ay geeri arkeen ay la soo kaxay argeelay laga daa argeelay la soo kaxay mareeyay dhulkan ciise muuse ay degay inuu silsilada gool Israa'iilaha ay silsilad ku wadaagsan tahay oo xaggan iyo hadii xaggan hoose ayuu baru dhaqaanay qolada ciidan gareemada qor ilaa cadad iyo xagga inuu dhul xidhan yahay beero u reejira laga baxa taarkii dabcadii markay ka soo baxeen ayuu geelida ay wataan geel halkaas laga reebo ariga la yidhi ma hoos qaar buu dhibido idnaali ka hoosta mariyo geel halkaas laga reebo baalkii ninkii bulaysana loo oran jiray ninka oran jiray baratare ninka baratare loo oran jirayna halkaasi wuu ka noqdo uu ka nabad galay laakiin markii uu arigii iyo wixii uu galay ayaa la dilay kolkaasuu gabayga tirinaya allah ayuu bulaysana sidaan ugu basiiroobay sidee baan qolkii baratare iyo baahana u bulaaliya hadduu geel ku tago uma baroortayna baraariya idaa lagula helay badaxoodkii u haddaba qisadu maxay tahay qisadu waa qis caadi ah waa faraska bulaysana la yidhaahdo qowdhan ducaali dagaal baa dhacay colkii dagaalkaa galay waxaa loo bixiyey baratare nin dagaalka ku dhintayna waxaa loo bixiyey baahane ayaa la odhan jiray magaciisa dabadeedna faraskiisii wuu qowdhan u calaacalay colkii baratare iyo baahane oo ah ninkii taliisa lagu jabayna gabaygu ku xusay wuxuu leeyahay allahayow bulaysane sideen ugu basiiroobay sidee baan colkii balatariyo baahana u eeday hadduu baatir geerigaga lumo uma baroorteene baraar iyo iduu igaga lumay badhaxlamoodkii qisadu waa taa waa gabaygaa uu qowdhan ducaale tiriyey faraska bulaysana la yidhaa qowdhan ducaale lahaa gabayana anigu ma tirine dee qowdhan ducaalaa tiriyey ciddaan ka xigtayna waa muuse cali faruur codkiisiina saa idii sheegan waan hayaa waa yahay haddaba waxaa laga yaabaa abwaan muuse cali faruur inuu dee ma garanaysaa ilaabay arrinkaa laakiin dee mar haddii sheekadu midhiya gashay oo ha la soo caddeeya ay noqotay waxa weeyaan dee inaan caddeeyo waajib bay ku tahay qodobka labaad
faraskii qowdhan ducaale waa lala hadhay waxaa laga dhigayaa arrin dee ma garanaysaa cid lagu ceebaynayo waxani waa taariikh waa suugaan gabaygana inoo geeyey qisada baynaa soo qaadneene dee gabaygana inoo geeyey waxaa buugga ku yaallaa gabaygii faraskii qoorwiile ee cali jaamac xaabiiloo lala hadhay cabdi fadal iyo raggiisaa la hadhay cali jaamac wuxuu leeyahay qoorwiilahaygii nin kale quntu xaabyaasi dadka kale ninkii qabar ku dhaco waa la qariyaaye nin qareenkii reer saaxiib yahay qeexa laabaday salaadaba wakhtiga qiimo waa laga qalleeyaa annagana qasraa noogu xidhan qaydadii shalay qalleeyayna dhaha jeer damba wayna qabataaye marka waxa weeye sheekadaasi waa sheeko taariikhiya waa sheeko dhacday sheeko anigu aan samaystay maaha muuse cali faruur abwaankeenna ayaan ka xigtay buuggayga qurhna kuma taalo meelo badan buu muuse u duubay ninkii doonaya iyadoo faahfaahsan wuxuu ka dhegaysan karaa hoyga suugaanta bay iyadoo faahfaahsan ku jirtaa waayahay haddaba markaan u imaado buuggan iyo muuse laba isku galoolan ama waxa weeyaan taariikh wadaaga weeye ilaa maalintan bilaabay dadkii ugu badnaa ee aan wax ka weydiiyo taariikhaha ayuu muuse kow ka yahay buugga waxa ku yaalloo muuse iga warramay mangalool faraska la yidhaahdo ee xuseen xasan lahaa buuggu ku yaalla wuxuu kaloo iga warramay siigcadar faraska la yidhaahdo oo uu nuur dhagacun lahaa buugguu ku yaallaa bulaysane oo uu qowdha ducaala lahaa waana ka hadalku ka taagan yahay buugga ku yaalla muuse waxaan ka duubay 2011 marag fur muusnimo nimaan kugu dhaqayn mooynaba khaasa gabaygaasaan weydiiyey cidda tirisay gurigiisaan kaga duubay wuxuu caddeeyey inuu cali jaamac xaabi leeyahay isagoo fiidiyowaan hayaa markii xayeysiiska markii la samaynayey muuse dadkii ugu horreeyey ee buugga aan u geynaan ku soo sawirnay ee xayeysiiska ku jiruuha markaa horta taariikhdaasay muuse iyo buuggu wadaagaan buug uu muuse iminka maqlay uun maaha laakiin waxaa laga yaabaa adeerkay anigoo ixtiraamaya inuu ilaabay aniguna muuse kama been abuuran waayahay waxaa kaloo jira ilaa dhowr iyo 90kii muuse waanu isla joognay wuxuu ahaa macallimiinteyda koowaad arrin waloon gelaya iyo taariikh waloo la qorayaba waxbaan ka weydiinayey buugga suugaanta colaadiya nabadda ee an iyo ismaaciil aadan jaajuuma waan uruurinay rashiid garweynena tafatiray ee isku dubariday dadkii ugu mudnaa ee aan wax ka weydiinaynay ee weliba aanu ka soo qorayey taariikhda buugga ku qoran muuse kow buu ka ahaa qof kasta oo suugaan iyo taariikh baadhayana muuse u tagbaan lahaa marka horta muuse dee arday iyo macallinkiisaan isku ahayn laba qof oo ma garanaysaa ayay loo kala turjumo maanaan ahayn ee laba qof oo wax walba ma garanaysaa isla socodsiiya ee wax walbana isweydiiya muusena marti uga abaan ayaan runtii ahaa buuggayga waa la duray buuggaygani waa buug laga qoray taariikhdii soomaalida wax badanoo ummaddu leedahay ayuu ka hadlayaa 26 faras iyo raggii lahaa ayaa ku qoran waxaa ku qoran habkii guurka iyo qaybihiisii waxaa ku qoran xadaaradii soomaalida iyo xeebaha iyo say caalamka ula xidhiidhi jireen halganadii soomaalidu ay gashay ee shisheeyaa kaga hor tagtay hadday tahay dagaalkii biyamaal iyo talyaaniga hadday tahay dagaalkii sheekh xasan barsame hadday tahay dagaalkii puntland iyo sheekh boqor cismaan ula galay talyaani hadday tahay ogaadeen iyo ciidankii mililik dagaaladay galeen iyo dadka reer somalilan dagaalkii ay la galeen talyaaniga iyo ingiriiskaba la galeen iyo amxaaradaba marka waxa weeye horta buuggaygu waa buug taariikhda soomaalida noolaynaya ee buug cid duraya ama cid diilumaad ku ah maaha waanaan ka xumahay ciddii ma garanaysaa sa u tafsiirta waayo dee waa qofku inuu akhriyaa inta wax loo sheego inay ma garanaysaa wax loo sheego qaata maahee horta waa inuu akhriyaa buugga waxa ku qoran uu ogaadaa
bashar baan ahay oo waxbay hoos seegi karee buuggayga wixii khalad ah ku qoran dee waa laygala hadli karaa laakiin buugaa kale oo ay dad kala qoreen layguma soo sidki karo buug walba waxa weeye aniga dekan adumadayda saaran oo wax layga weydiinaya laakiin hebel baa buug qoray iyo arrinkaasna arrin meesha leeg maaha waxaan halkan ka cadaynayaa adeerkay Muuse inaana masabidin waxaanan ka qorin iyo waxaanan magaranaysa ka duubina ma garanaysaa aanan odhanin waxaanad ka ogaan doontaan dee marka codka dhegaysataan ayaad ogaan doontaan waana jeclaa Muuse inuu ila soo xidhiidho intii aanu dee TV-ga tegin laakiin barday dee TV-ga tagtay oo arrintu eedanay noqotay aniguna inaan dumadayda bari yeelo dee waajib bay ku tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu